nabadda wadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabin ku saabsan qodobo waaweyn ayaan tabintan idinku hayaa waxaana ka mid ah wiilkii uu dhalay madaxweynihii hore ee waddanka Liibiya Muammar al-Gaddafi isla markaana ahaa siyaasi ruugcadaa ah oo waddankaasi si weyn looga yaqaanay oo la yiraahdo Sayfuddin al-Gaddafi ayaa caawa lagu dilay gudaha waddanka Liibiya haddaba dilkiisa ayaa ka dambeeyay sidayse u tabinaya warbaahinta carabta suuragal ma tahay in xukunka looga baqayo inuu dib ugu soo laabto warar iyo warbixino kala duwan oo soo baxaya oo ay tabinayaan warbaahinta gobolka ayaan idin hayaa caawa iyadoo xiisadan Liibiya caawa warbaahintu ay si weyn indhaha ugu hayaan marka la fiiriyo ninkaasi madax jibaalka ah ee la qaarajiyay waxaan sidoo kale eegi doonaa Mareykanka oo war ka soo saaray xiisada gobolka bariga dhexe kuna warramay in ay soo rideen diyaarad ay lahaayeen waddanka Iran isla markaana ku soo dhawaatay mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee yaalla meelaha ku dhow xeebaha waddanka Iran una diyaarsan haddii wada hadallada la filayo ay guuldareystaan in ay weerar qaadaan haddaba dowladda Iran qudheeda war bay ka soo saartay arrintaasi waan idin la wadaagi doonaa dhinaca kale waxaan inta barnaamijka jooga eegi doonaa Iran oo laba bogleyn ay la soo diristay kadib markii ay ogaatay in wadamada carabta qaarkood ay ood xanan ah ku jiidayaan sida wararka loo dhigayo isla markaana waxay leedahay wada hadalka la leeyahay wadamada islaamka iyo carabta ayaa ka qayb galaya ee Washington iyo Tehran u dhaxeeya waa in la bedelaa wada hadalladuna ay noqdaan oo kaliya kuwa u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka oo aan markaan is hor fadhiisana ay leeyihiin sidoo kale waxaa soo baxaya in Iran ay ka labanayso in ay ka laabato goobta lagu qabanayo shirka oo Turkiga ahayd xagee bay doorteen wadan gaara ayay doorbidaysaa dowladda Iran Abbas Araghchi ayaa haddaba daraasad samaynaya wadankaasi maxaa lagu doortay barnaamijka ayaa khiyaaray ku ogaan doontaan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu gaaray waddanka boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman ayuu la kulmayaa xilli xiisada gobolkaasi waa bariga dhexe ee iminka gelgelanayso aan ku horeeyo waddanka Liibiya wiilkii uu dhalay madaxweynihii waddankaasi muddada dheer hogaaminaya Muammar al-Gaddafi oo la yiraahdo Sayf al-Islam al-Gaddafi ayaa lagu soo warramayaa in la dilay caawa kadib markii rag hubaysan oo afara ay ku weerareen isagoo ku sugan beer gurigiisa ku dhex taala magaalada la yiraahdo Sintan oo galbeedka waddanka Liibiya ka tirsan sida ay sheegayaan ila ku dhow qoyska Sayf al-Islam al-Gaddafi waxay leeyihiin dilkiisa waxa uu muuqanaya in muddo dheer laga shaqeynayay isla markaana kooxdan ay aad ugu raad joogeen ninkaasi inay qaarajiyaan waxaa warar soo baxaya durbaba ay sheegayaan sida ay ku warramayaan qaar ka mid ah warbaahinta carabta ninkan ayaan inta aan la dilin ka hor niman afara oo hubaysnaa isla markaana watay boobayaasha darandooriga u dhaca waxa ay damiyeen guud ahaanba kaamirooyinka dhaqdhaqaaqa nabadgelyada la socda kadibna waxay u gudbeen beerta Sayf al-Islam al-Gaddafi halkaas oo la sheegay in rasaas ay huwayeen kadibna ay goobta isaga baxsadeen marka uu soo baxay dilka warkiisa waxaa soo orday qaar ka mid ah ilaalada iyo guutada gaarka ah isaga uu hogaamiyo ee la yiraahdo Liibiyada biri ama al-Liibiya al-Qad waxaa lagu soo warramayaa in halkaasi tacshiirada ay ka dhacaan muddo kooban kadibna kooxii ay cagta maaleen oo ay goobtaasi baneeyeen ninkan ayaa laga soo daayay xabsi sanadkii 2017 waxaana isagoo maqana ahaa horey loogu xukumay dil toogasho ah hase haatee kiiskiisa ayay maxkamadaha Liibiya dib u fureen oo la sii daayay sanadkii 2017 guutada lagu magacaabo 444 ayaa loo malaynayaa in arrintan ay ka dambeeyeen maadaama Sayf al-Islam al-Gaddafi iyo waliba guutadaasi ay si weyn isku hayeen qaar kamida ragga warbaahinta taxliiliya carabta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda waddanka Liibiya waxay leeyihiin ninkan waxa ay si weyn isku hayeen kooxaha islaamistayaasha ah oo waddanka Liibiya iminka saameyn xoogan ku leh isla markaana qaybo kamida ay taladaba iyaga hayaan
sayf al-islaam al-khadaafi waxa uu dhashay 5tii bishii Juun sanadkii 1972 sanado kooban un kadib markii aabihii Muammar al-Khadaafi talada wadankaasi uu la wareegay isagoo dhalinyaro ahaa waa Khadaafi door muuqda ayuu ku lahaa siyaasadda ilaa la soo gaaray sanadkii 2011 xilligaas oo wixii loo yaqaanay Rabiic al-Carabi uu sabab u noqday Khadaafi in xukunka laga tuuro kadibna la dilo iyadoo wadanka Liibiya uu ka dhaxlay dilkii Khadaafi dhibaatooyin nololeed oo xoog leh sanadkii 2015 ayaa lagu xukumay dil isagoo maqana ka ah maxkamadda laakiin magaalada Sintaan oo caawa lagu dilay ayaa laga sii daayay bishii Juun sanadkii 2017 kadib markii kooxo maleeshiyada oo magaaladaasi gacanta ku hayay ay sii daayeen ninkan ayaa mar isku soo sharaxay xilka madaxtinimada wadanka Liibiya waxaana la sheegay in uu lahaa taageerayaal fara badan iyadoo kooxaha ka aragtida ah ay aaminsan yihiin haddii talada wadankaasi ay gacanta u geli lahayd in wadanka Liibiya uu mar kale cagta saari lahaa xukunkii kitaabka cagaaran ee loo yaqaanay kitaabul aqdar iyo aragtidiisa dadii loo yaqaanay an-nadariyatu al-caalamiyatu thalitha uu hogaaminayay Muammar al-Khadaafi taas oo la aaminsan yahay in reer galbeedku ay isku hayeen isla markaana sababtay inay aad u kala fogaadeen ka hor intaan xukunka laga tuurin aabihii dowladda Mareykanku waxay ku warameen in ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha wadankaasi Iran markii ay ku soo dhawaatay markab diyaaradaha xambaara oo dowladda Mareykanku ay leedahay oo yaallay meel ku dhow gacanka Hormuz hase haatee dowladda Iran waxa ay tallaabadaasi ku tilmaantay kuwa aan sal iyo raad lahayn salaasadii maanta ciidamada Mareykanka ayaa ku waramay inay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo drone ah oo laga leeyahay dalka Iran kadib markii ay ku soo dhawaatay markab diyaaradaha xambaara oo dowladda Mareykanku ay leedahay oo ku sugan badda Carabta warbixin ay baahisay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay muujisay in xiisad hor leh ay ka dhex aloosantay gobolka kadib markii dowladda Iran ay tallaabooyinkaasi qaaday dhinaca kale shirkadda amniga badaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain la yiraahdo Vanguard Technology ayaa sheegtay in doon dagaal oo ay Iran leedahay ay ku soo dhawaadeen markab laga leeyahay wadanka Mareykanka oo saliid waday ama shidaal xambaarsanaa sida ay tilmaameen markabkaasi ayaa la yiraahdaa Stena Imperative kaas oo watay calanka wadanka Mareykanka ciidamada wadanka Iran ayaa markay markabka u soo dhawaadeen iyagoo 16 mayl ka yar u jira waxa ay la xiriireen naaqoodihii markabkaasi hogaaminayay waxaanay u sheegeen in uu matoorada fariisiyo isla markaana ay doonayaan in doonida la baaro hase haatee naaqoodaha ayaa la sheegay in aanu dheg jaraq u siin uu markabkiisii iska sii kaxaystay isku halayntu waxay ahayd in ay galbinayeen qaar ka mid ah maraakiibta dagaalka ee wadanka Mareykanka arrintani markii ay banaanka u soo baxday dowladda Iran ayaa waxa ay tiri waxani waxba kama jiraan oo ujeedadu waxay tahay afgaar dagaal iyo olole sii xoogaysanaya kaasoo ujeedadiisu tahay in lagu jiteeyo dowladda Iran oo haatan caqabado iyo mashaakil siyaasi kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa ammaanba wajahaysa sida ay wadankaasi warka u dhigeen wakaaladda wararka ee dowladda Iran ee la yiraahdo Tasniim ayaa warinaysa marka laga yimaado dagaalka muruqa iyo waliba tiknoolajiyada in ay socdaan dagaalo afkaareed oo la doonayo in meesha looga saaro dowladda kacaanka ee uu hogaamiyo Ayatullaahi Cali Khamenei madaxweynena uu ka yahay Mas'uud Pezeshkian taasoo hadda Mareykanku ay si weyn isku hayeen saacadihii la soo dhaafana la qorsheynayay in labada dhinac ay isugu yimaadaan wada hadal ujeedkiisu yahay in lagu soo gabagabeeyo xiisadda sii xoogaysanaysa ee dhinacyadan u dhaxaysa dowladda Iran ayaa lagu soo waramayaa inay badashay hanaankii ay doonaysay in ay wada hadallada wajahdo Ayatullaahi Cali Khamenei waxa uu istireensiiyey qaar ka mid ah dowladaha Carabta ujeedkoodu inuu yahay in ay ku dhex tahriibaan siyaasad ahaan dowladda Iran
islamarkaana ay doonayaan afkaar siyaasadeed oo nuglayn karta amniga waddankaasi in wadahadallada la filaya inay ka dhacaan waddanka turkiga jimcadayna soo aadan ay la soo gola fadhiistaan dowladda iiraan oo durbaba dareentay khataro waaweyn baa la yidhi waxay codsanaysaa in isbeddel ay la timaado xagga ajandayaasha kulanka iyo dhinacyada lala doodayaba iiraan marka ugu horraysa waxa ay raadinaysaa in wadahadalka laga beddelo waddanka turkiga oo loo raro waddanka cumaan waxay sidoo kale iiraan ay doorbidaysaa baa la leeyahay in dowladaha carabta ee kulanka fadhiisan lahaa iyo kuwa islaamka meesha ay isaga huleelaan oo ay iswajahaan darafyada ishaya waa washington iyo weliba tahraane wargeyska ka soo baxa dalka maraykanka ee axios waxa uu leeyahay dowladda iiraan waxa ay iminka rajo wanaagsan ka muujinaysaa iyo dadeelo kasta oo la gaaro oo nabadeed hase ahaatee dhinaca kale waxa ay walaac ka muujinaysaa tallaabooyinka saddexda ah uu maraykanku soo kordhiyey in meesha laga saaro waa mide in dowladda iiraan ay aqbasho in haba yaraatee wax nuclear ah aanay samayn doonin oo ay yarayso bacriminta uraniumka iyo sidoo kale in ay hoos u dhigto gantaalada ay soo saarayso oo hurdo iyo hoyaadba u diiday nidaamka israa'iil iyo weliba in ay meesha ka saarto maalgelinta kooxaha gobolka ee iiraan la ologa ah taasi oo loo yaqaano saddexagalka wax iska caabinta dhammaan arrimahan dowladda iiraan waxay u aragtaa in ay saamayn ku leeyihiin mustaqbalkeeda iyo weliba horu socodka waddankaasi gobonnimadeeda iyo weliba geediga isbeddelee dowladda iiraan ay ku raad joogto hase haatee madaxweynaha waddanka maraykanku waxa uu leeyahay waa trump haddii aanay tani suuro gelin oo qodobadaasi la meel marin waxay ka dhigan tahay in maraakiibtaydu ay shaqaysan doonaan oo iiraan laga qaadi doono buu yidhi tallaabo aada u ballaaran madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu gaaray magaalada riyaad ee xarunta waddanka boqortooyada sacuudi arabiya qasriga yamaama ee looga taliya waddanka sacuudiga ayaa waxa uu kula kulmi doonaa maxamed binu salmaan wiilka waddankaasi hogaamiya ee dhaxal sugaha ah sidoo kalena ah hogaamiyaha golaha wasiirada ee waddankaasi sacuudiga kulamadan ayaa la qorsheynayaa in diiradda lagu saaro xaaladaha xasaasiga ah ee ka taagan gobolka bariga dhexe is-ologsiga u dhaxeeya dowladaha ankara iyo sidoo kale waddanka sacuudiga ee la xiriira isballaarinta israa'il iyo horgal u socoshada ama bartilmaameedkay u tahay isballaarintooda oo ay kala shaqaynaysa siyaasaddaasi dalka isutagga imaaraadka carabta sida qaar ka mida gobolku ay ku doodayaan dowladaha degan magaalada riyaad waxaa lagu qabtay madasha iskaashiga sacuudiga iyo turkiga iyadoo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo ka mid ah hogaamiyaasha labada dal labadan dhinac waxay sidoo kale dhaqdhaqaaq iyo saameyn xoogan ku leeyihiin gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ikhyaartay nala socotay tabintan intaas ayaan ku gabagabaynayaa si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeri aad u heshaan ha hilmaamina youtube-ka inaad subscribe saartaan